وعنو wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad ku daawan doontaan wararkeenana waxaa ka mid ah dawladda Kenya oo qorshaysay in dib loo bilaabo toddobaadkan qaadkii laga keeni jiray waddanka Kenya loona iibgeyn jiray Soomaaliya Daesh oo muddo kadib sheegatay qarax ka dhacay Muqdisho kaas oo lala egtay ciidamo ka tirsan ADMIS taliska Africom oo war ka soo saaray duqeyn ay la beegsadeen saldhigyo ay leeyihiin Al-Shabaab kuna yaala koonfurta Soomaaliya iyo ciidamada ammaanka ee dawlad goboleedka Galmudug oo gacanta ku dhigay askari dilay sargaal ka tirsanaa ciidanka NISA intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa wararkeena imikii aatan u diyaar garooba daawashada iyagii oo intaa ka dhameystiran waa 19 bisha 7 sanada 2022 hadii ay tahay markii kuugu horeyso oo soo booqatay channelkeena haylawina subscribe tiraadid kadibna aad furatid calaamada gambaleelka si ay ku soo gaaraan wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka siina gaarsii saaxiibadaada jecel horumarka dalka adigoo ku share gareynaya baraha bulshada inagoo ka dheeraanayna wax walba dalkeena dib u celin kara aynu ku bilownay dawladda Kenya ayaa bilaabayso toddobaadkan keenista qaadka ee Soomaaliya dawladda Kenya ayaa lagu wadaa in qaadkii ay keeni jirto Soomaaliya ay bilowdo maalinta Jimcada ee toddobaadkan sida ay qorayaan warbaahinta waddanka Kenya xogayaha arrimaha dibadda ee waddanka Kenya iyo xogayaha joogtada ee arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa isku raacay in si degdeg ah ay dib ugu bilaabaan heshiiskii adeegga hawada ee labada dhinac ganacsatada iyo beeralayda waddanka Kenya ayaa si weyn u soo dhaweeyay dib u fasaxida suuqa qaadka ee Soomaaliya balse waxay ugu baaqeen dawladda Kenya inay dedejiso bixinta shatiyada dhoofinta Kenya iyo Soomaaliya ayaa dib u nooleeyay xiriirkii labada dal kadib markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu la kulmay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo ay isku raaceen in ganacsigii iyo duulimaadyadii labada dal ay si degdeg dib ugu bilaabaan gudoomiyaha ururka ganacsatada miirowga ee dalka Kenya ayaa sheegay in hay'adda beeraha iyo cunnada ee dalka Kenya ay diiwaan gelisay 500 oo dhoofiye ah kuwaas oo doonaya inay jaad u dhoofiyaan Soomaaliya sida xeerku uu dhigayo dhoofiyaashu waa inay diiwaan gashadaan oo ay shatiyo ka haystaan hay'adda cunnada iyo beeraha ee waddanka Kenya qof kasta oo dhoofinaya qaadka miirowga bilaashati waxa uu mutaysan doonaa xarig ilaa 3 sano ah ama ganaax gaaraya 5 milyan oo shilinka dalka Kenya ah ganacsatada qaadka ee waddanka Kenya ayaa sugay in muddaaba in xayiraadda laga qaado qaadkii loo iibgeyn jiray Soomaaliya maadaama Soomaaliya ay ahayd meesha ugu weyn ee suuqa ganacsiga ay ku leeyihiin muddo gaaraysa 2 sano ayuu xayirnaa waxaana xayirtay dawladdii hore ee madaxweyne Farmaajo kadib markii ay shaqabteen dawladda waddanka Kenya waxaana aad u xumaaday xiriirkii labada dhinac ganacsatada qaadka ee dalka Kenya ayaa rajo badan yeeshay markii la doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana uu meesha ka baxay madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Daesh ayaa muddo kadib sheegatay qarax ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ururka la magac baxay dawladda Islaamka gaar ahaan garabkooda Soomaaliya ee Daesh ayaa sheegtay mas'uuliyadda qarax maalintii shalay ahayd ka dhacay isgoyska Cali Kamiin ee degmada Warta Nabadda warar lagu baahiyay baraha wararka ay ku baahiyaan Daesh ayaa lagu sheegtay inay mas'uul ka yihiin qaraxii lala beegsaday ciidamada ADMIS Daesh ma aysan bixin xogta khasaaraha ka dhashay weerarkan marka laga reebay in ay burburiyeen mid ka mid ah gaadiidka ay wateen ciidanka lala beegsaday qaraxan ee ADMIS qaraxan oo dhacay barqanimadii maalintii Isniinta ee shalay ayaa joogtiisa laga maqlay inta badan qaybo badan oo ka mid ah magaalada Muqdisho iyadoo ciidanka la qarxiyay ay muddo kooban xirteen goobta waxaana ay hakad geliyeen isku socodkii gaadiidka iyo dadweynaha sheegashada qaraxan ee Daesh ayaa ku soo beegmaya xilli dhaqdhaqaaqa Daesh ee koonfurta iyo bartamaha dalka uu waayadan dambe ahaa mid hooseeyay taas oo loo sababeynay in ay tahay dagaalka u dhaxeeya Al-Shabaab iyo Daesh si kastaba Al-Shabaab ayaa hore ugu dhawaaqay howlgal ka dhana Daesh oo ay ku eedeeyeen in ay suurad xumeeyeen jihaadka waxaana labada dhinac ay yihiin kuwa ka siman la dagaalanka dawladda iyo sidoo kale ciidamada howlgalka ADMIS ee jooga Soomaaliya Al-Shabaab oo in muddo ka dagaalamay Soomaaliya ayaa markii hore ku soo dhaweeyay Daesh oo qaybaha ugu badan ee dalka gacanta ku hayay xilligaas waxaa muddo kadib soo baxay khilaaf u dhaxeeya labada dhinac oo sababay inay dagaalamaan labada dhinac ee Shabaab iyo Daesh waxaana dagaalada ugu badan ee dhexmara uu ka dhacay deegaanada buuraleyda ee maamulka Puntland weeraradii koonfurta Soomaaliya ee Daesh ayaa aad u yaraaday kuwaas oo iskugu jira dilal iyo sidoo kale qaraxyo ka dhici jira caasimadda iyo deegaano kale oo ka baxsan arrintaas ayaa waxay tahay sababteeda in ay dagaalameen Daesh iyo Al-Shabaab isla markaana Daesh howlihii ay ka waday koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya hakad badan uu galay taliska Africom ayaa war ka soo saaray duqeyn ka dhacday Soomaaliya war saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika loona yaqaan Africom ayaa waxaa lagu sheegay in ay duqeyn dhinaca cirka ah ay ku qaadeen saldhigyo Al-Shabaab ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan Jubbada Hoose qoraalkan ayaa lagu sheegay in duqeyntan ay ka dhacday deegaano fogfog oo u dhow deegaanka Labakuus oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ciidamada Mareykanka ayaa loo fasaxay inay fuliyaan weeraro ay ku difaacayaan ciidamada ka jooga Soomaaliya
qiimeynta horudhaca ah ee taliska ayaa waxaa lagu sheegay in laba ka mid ah al-shabaab lagu dilay howlgal iyo sidoo kale in aysan jirin cid rayid ah oo ku dhaawacantay ama lagu dilay weerarkaas sidoo kale qoraalka ayaa lagu yidhi dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Mareykanka ayaa weli ay ka go'an tahay la dagaalanka al-shabaab si ay kaga hortagaan dhimashada dadka rayidka ee aan waxba galabsan ayaa lagu soo gabagabeeyay warka ka soo baxay Mareykanka taliska Africom ayaa waxa uu yahay mid duqeyme cirka ah la beegsada al-shabaab isla markaana dhowr jeer ka qayb qaatay weeraro ay qaadeen ciidanka sida gaarka u tababaran ee danab duqeymaha ugu badan ee taliska Mareykanka ee Soomaaliya ay qaadaan isla markaana ay la beegsadaan al-shabaab ayaa la sheegaa inay dad rayid waxyeello badan ka soo gaartay inkastoo talisku arrintaas uu iska dheereeyo markii la doortay madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden ayaa loo ogolaaday ciidamada Mareykanka in ay fulin karaan weeraro kuwaas oo ay la beegsanayaan al-shabaab ugu dambeynna askari dilay sargaal ka tirsanaa ciidanka NISA ayaa gacanta lagu soo dhigay ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa howlgal qorsheysan oo ay ka sameeyeen duleedka degmada Cabudwaaq ee waqooyiga gobolka Galgaduud waxa ay ku soo qabteen askari ka tirsanaa ciidanka militariga Soomaaliya oo loo haystay dilka laba ruux eedaysanahan oo loo haystay dil uu geystay taliye ku-xigeenkii ciidamada nabad sugidda maamulka Galmudug Faarax Cumar Geelle iyo walaashiis ayaa waxaa lagu soo qabtay deegaanka Ceel Gargaar ee duleedka bari ee degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud wararka ayaa waxay sheegayaan in aysan jirin wax khasaare ah oo ka dhashay howlgalka ninka lagu soo qabtay waxaana saraakiishii hogaaminaysa ay sheegeen in qabashadiisa kaalin lixaad ay ka qaateen dadka shacabka ah oo hay'adaha ammaanka siiyo xogta suuragelisay in la soo qabtay gacan ku dhiglaha si kastaba ahaatee maamulka degmada iyo kan Galmudug ayaa sheegay in dambiilaha la horgeyn doono maxkamadaha garsoorka si tilaabo dhinaca sharciga ah looga qaado dhinaca kale ciidamada ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa taliska booliska degmada Cabudwaaq waxa ay ku soo bandhigeen Axmed Dagadheere oo 2 maalin ka hor gudaha degmada Cabudwaaq ku dilay Allah u naxariistay taliye ku-xigeenkii ciidanka nabad sugidda Galmudug Faarax Cumar Geelle iyo walaashiis Xaawo Cumar Geelle ciidamada dowlad goboleedka Galmudug ayaa dhowr jeer sidaan oo kale waxay soo qabteen dad dilal ka geystay degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud kuwaas oo ka baxsaday degmada inta badan deegaanada maamulka Galmudug ayaa waxaa ka dhaca dilal la xiriira aanooyin qabiil kuwaas oo maleeshiya beeleedyo ay ka geystaan deegaano badan oo dhaca maamulka Galmudug waxaana dadka geysta dilalka intooda badan ay ka baxsadaan deegaanada dilalka ay ka geystaan ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka Galmudug ayaana soo qabta halka kuwa kalena lagu raad joogo oo ay ka baxsadaan deegaanadaas dhowr jeer saraakiisha ammaanka ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa digniino adag u diray dadka wax ku dila deegaanada maamulka Galmudug kuwaas oo u daba socda dadka ay dilayaan aanooyin qabiil dhowr jeer ayay ciidamadu soo xireen dad dilal u geystay dad kale oo rayida kuwaas oo weli ku xiran xabsiyada deegaanada maamulka Galmudug ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa xilligan waxay wadaan howlgalla ay kula dagaalamayaan sidii looga hortagi lahaa dadka wax ku dila deegaanada maamulka Galmudug kuwaas oo dilalkooda ay daba socdaan aanooyin qabiil oo hore kaga dhacay deegaanada maamulkaas intaasina daawadayaal waxaa ku dhan wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka waadna ku maasantihiin la socodkiina iyo la saanqaadkiina wixii aragti oo noo haysaana noogu reeba qaybta hoose ee kommentiga